waan baabuleed gareeyey oo xogtii waan ku qoray marka waxaan rabaa waatana xogtii halkaas ayay ku qoran tahay marka waxaa la rabaa in mataqaanaa aan halkaa ku muujino waxyaabahan oo idin halkan totally waxba kuma qorayno marka waxaan samaysanayaa bog kalaan furanayaa fiiri bog kale boggii ku xigo yaan furanayaa markaa sidaa u furto halkan oo kalaan imaanayaa waxaan ku qorayaa afartaa magac ee muhiimka ah ee total income, total expense, total profit, total loss yaan ku qoranayaa sheetkan soo waxaan leeyahay total income markaan sidaa ugu qorto waxaan rabaa totalka wixii income halkana inaan halkan keenaan rabaa halkan hoose okay so haddaan rabo boxka kuwan iska hayar boolka dhigto wixii expense-na waxaan rabaa inaan halkan keeno okay so waxaan sameynayaa markaa halkanaan imaanayaa eegya halkanaan imaanayaa waxaan leeyahay equal sum kaa sidaa dhaho halkaa koraan qalinka geynayaa waxaan tegayaa sheetkii halkanaa imaanaya halkanaan qalinka sidaa u taabanaa fiiriya qalinkeyga markuu sidaa noqdo ayaan dhag siinayaa totalka dhan wada highlight ka dhigaya okay intaas waan anagu rabaa bracketkan xirayaa okayaan leeyahay way ii soo gelaysaa waa kaa 9,92,500 samaheen 92,500 haddaan sidaa u highlight gareeyo eeg halkan hoose eeg 9,92,500 so tana sidoo kale waxaan leeyahay equal sum waxaan tegayaa sheetkeygii baan tegayaa total expense-na waa kaasaasaan ugu dhufanayaa qalinka halkaa geysanayaa bracketkan xiranayaa okay aan leeyahay waa ii imaanaysaa iyadana waata okay kadib total profit iyo total loss ayaga waxaa lagu helaa calculation in la xisaabaa lagu helaa total profit wuxuu soo baxayaa markii income-ka uu ka bato expense-ka total loss-kana wuxuu soo baxayaa marka uu total expense ama qarashka uu ka bato income-ka dakhliga ka bato aan ku celiyay eeg profitka ma faa'iidada waxay soo baxdaa markii dakhligaagii ku soo galay oo laga jaray qarashka ka baxay wixii ku soo haraa profit la dhaha kana waxa weeyaan haddii dakhliga inta laga jaro qarashaadkaaga uu eber ay soo baxda oo kale ee halka noqonaysa amaba aan dhahno qarashkaagii ayaa waxa uu ka batay dakhligaagii waxay noqotay marka inaad savingkaagii wixii aad keed ahaa oo meel dhigata aad isticmaasho kaasaa halkan wuxuu noqonayaa marka loss waa marka income-kaagii uu ka yaraado qarashkaagii uu ka yaraado kuwa marka calculation ku sameynayna waxaan leeyahay marka inta equal aan leeyahay if formula aan gelinaya qaacidaan gelinaya tan if caadi ah waxaan leeyahay if haddii income-ka uu ka bato expense-ka uu ka bato example waxaan leeyahay waxaad ii sameysaa income-kan oo kana waxaad ka jartaa expense-ka ka jar wixii soo haro meesha iigu qoran haddii kaleba eber ii samey iigu qor meesha eberuna ii geli bracketkan xirayaa okay aan leeyahay okay marka 38,000 soo baxday calaamadii saaro waa kaa 38,000 waxay noqotay total profit sidoo kale ayadan tan intaan imaanaya waxaan leeyahay if kadib waxaan leeyahay haddii this amount oo expense-ka uu ka bato kan uu ka bato oo expense-ka uu bato waxaad sameysaa hee expense-kan oo kana waxaad ka jartaa income-ka ka jar haddaynan ahayn ever is iyo qor else ever iyo qor okay aan leeyahay marka hadda waa 0 hadda calaamad saa ku dhufto marka haddii aan format garay calaamadaas minus to soo saaraya intaan marka highlight garaysanaya aniga it's fine intaas markaas sameeyo oo aan ku soo sameysto screen kale ama shaashad kale ama sheet kale aan ku soo sameysto waxaa la rabaa aqbaartan ina iyadoo sidan inta soo qaado halkan aan keeno yaa la rabaa la soo mar qaybta xigta